in badan ilaahay baan ku dhaariyay gabadhan qaawan ee qabta diraca khafiifka ah xaadeedii la arkayo meel fog laga arkayo xaadeedii diracan qaaliga ah 160 200 euro la gadayo ya war diracan aan waxba celinaynin aan qaawanaansho waxba dhaamin ee xaada qofka laga arkayo amaanada ilaahay aanan asturi karin war waxa kan lagu khasaariyay lacagta u baahan aabiyo hooyo qaxootiga jooga dhimanaya xanuunsan ma aragtay aan waxba haysan oo aradan war lacagahan xagga la rabo in loo diro diracan lagu iibiyay diracan deyntiisa aan weli la bixinin bahalkan qaawan ilaahay baa ku dhaasiyay yaa u xiray gabdhaheena oo aanan ibliis ahayn iyo shaytaan yaa u xiray يا سراويشن سيد ويلشي يا قبلها سراويشن كنا جاني بلاستيكا وحري سو صاري بريهودي يو مارتا هيبسكودي وحيودن سو صاري يا وحري ويلكاغا اي غبدادا idinku idin la hadlaya sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahayaa ma ku tusaa ganacsi aad ku badbaadid ganacsi adduunyadan aad ku badbaadid reerkaaga ilaahay kugu dhowro caafimaad aad ku heshid wada jirkiina ilaahay idinku ilaaliyo dawo idin mideynaysa ma doonaysaan sil bayna an-nas idha tafasadu wa qarrib baynahum idha tabaacadu waxa la yiri xiriiri oo isu keen dadka marka ay kala furfuran rabaan haddaad la kulantid laba walaal oo kala tagi rabta isu xanaaqaysa uurka isu xumayn raba marka iyada ah xiriiri oo isu keen ka baqana ilaahay walaalaatihiina ibliiska iska ilaaliya wa qarrib baynahum idha tabaacadu walaalayaal waxaan si khaas ah maanta ula hadlayaa adoomaha ilaahay gaar ahaan dumarka adoontii allah ha noqonin adoon ha u noqonin ibliiska unnaqo adoon ilaahay unnaqo waxa jira gabdho badan oo marka kor laga arka aad isleedahay waa adoomo ilaahay laakiin xaqiiqadii aanan ahayn oo ah adoomo ibliiska dhaar waatuu ku maray wallahi ilaahay buu dhaar u marayaa wallahi waan amrayaa ilmaha aadam waan amrayaa waxaan yeelanayaa oo aan ku yeelanayaa adoomo aniga i caabuda oo ay abuurkaagii bedelaan abuur kale aan u samaysto kuwa aniga ii go'an ayaan yeelanayaa ha ku fikirin buu leeyahay ibliiska ilaahay buu ku leeyahay in ilmaha aadam oo dhan ay adiga adoomo ku noqdaan waqala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruuda qayban ku yeelanayaa buu leeyahay waa kuwe adoomada ibliiska من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكأنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ودور روحه لعنضي رسولك إلهي أي لعنضيان إسلامك لعنضي وأدومها إبليسك أدومها إلهي لما لعنضون قبضه halka timaha halka ku yaala timaha gabadha xiirta xaajibeynka sunniyaha xiidha ama yaraysa tan sameeysa tan loo sameeyo iyo kuwa mustawshimaadka oo isu yeela taatuuga jirkooda wax ku sawiro bedela ku raali ahaan waayo quruxda ilaahay jirkoodii u yeelay oo bedela ama halka bar u yeela ama sidii hindidii halka wax u sameeysta ama halka iska turqa kuwa ilkaha feedfeedha ibliisku uu amray uu leeyahay arfanax isu yeel ti ilaahay arkimayaan qaybta ilaahay si arkimayaan oo ay ku ahaayeen adoomo alle ibliiski ba amraaya saa ibliisku wax ma abuuri karaaya oo isaga awood ma laha uu insaan ku abuuro laakiin wuxuu dhaar ku maray in uu abuurka ilaahay faragelinayo gabadha ilaahay maarin ka yeelay gabadha ilaahay ilkeedii isku dhajiyay gabadha ilaahay sunniyaha u yeelay gabadha ilaahay jirkeedii qurxiyay isaga wuxuu dhahayaa sida qurux maaha wuu bedelayaa marka wuuna amrayaa wariyaa amarka qaata amarka waxa qaata qofka adoonka ah qofka adoonsanaya ayuu amarka ka qaataa adoomaha ilaahay bay amar ka qaataan adoomaha ibliiska ruuxaad naxariista ilaahay ku waayeysaa oo jannadii ku waayeysaa naxariis adduunyo mid aakhiro ku waayeysaa islaamkaaga aad uga fogaanaysaa timaha